kiina gaarsiisaan wixii horumar ee soo kordha halkan waxaa marayay maxaan ku dhahay 3 xildhibaan oo ka yimi maxaan ku dhahay aqalka baarlamaanka Ingiriiska runtii annagoo baarlamaanka ka socona Somaliland ayaanu la shiray arrimo muhiim ah ayaanu kala shiray oo doorashooyinka ah oo maxaan ku dhahay in ictiraafka iyo xaaladda guud ee Somaliland ku jirto arrimo badan oo runtii muhiim ah oo horumar leh ayaanu kala shiray si wasan baan maxaan ku dhahay annana ugu warranay tee waa salaamnay ka hadlaysa maxaan ku dhahay mowqifka baarlamaanka iyo hadii libadka leeyahay iyo taariikhda Somaliland waxay leedahay iyo inay dawladda maxaan ku dhahay Ingiriisku bedesho yani siyaasadan sug Soomaaliya isku timaadee oo ay maxaan ku dhahay in taariikhda Somaliland aad iyo aad bay uga warhaysaa way isku taariikh weyn baynu wada leenahay runtii waxaas waraaq ka warramaysa oo ilaa dhowr beej ayaanu dhibnay oo qoray maxaan ku dhahay gudoomiyaha baarlamaanku والسلام عليكم. الرحيم سا قدومي نو شيغay waxaan maanta la kulanay odayaashan baarlamaanka Ingiriiska ka socda odayaashan waa odayaal ama xildhibaano qadiyada Soomaaliland ixtiraafsan qadiyada Soomaaliland oo ololeeya qadiyada Soomaaliland halkan u yimi xildhibaanada inala joogo horta waa xildhibaanada u midoobay iyagoo xisbiga kala jaada ku jira in ay qadiyada Soomaaliland u doodaan oo ay ka doodaan wixii ka soo horjeeda intaas ba halkan ugu yimaadeen si xog dheeraad ah waxaan u sheegnay xildhibaanada in aynu qabanayno electionada baarlamaanka iyo local government ka next year waxaan u sheegnay in dalkan uu baahan yahay in support international community ay ku jiraan oo Ingiriiska horeeyo waxaan u sheegnay Somaliland in iyo British government inay yihiin dad siiqaana oo qadiyadan ku doodayno aad iyo aad ugu dhirigsan baan u sheegnay waxaan u sheegnay in electionada dhacaya ee aynu ilaa 2005tii aynu wadnay reasonka ugu weyn ee aynu sameeyna uu yahay in aynu ictiraaf helo waxaan u sheegnay in aanay soconayn aanay shaqaynayna in Jubaland iyo Puntland iyo Soomaaliya electionada ka dhacay si isu doortaan ognahay iyo teeno oo ay sidoo soo doornaa tahay Britishku sidoo soo doorto Ingiriisku sidoo soo doorto Europe sidoo soo doorato oo one man one vote in aynu isku mid noqono oo aynu had iyo jeer la iskeen barbardhigo international community oo isbar keen barbardhigaan in aanay inoogu shaqaynin baan u sheegnay waxaanu diyaar u nahay inaynu electionada qabanno waxaanu diyaarigana ka codsanay in ay nagala shaqeeyaan ictiraafka oo ay inay dunyada aanay noo dirin Afrika ku noqday iyagu ay hormoodo noqdaan markaas iyaguna waxay aqbaleen oo ay nala qaateen in ay noqon doonaan insha Allah ta'ala British government gaarsiin doonaan waraaqahan u gudbinay ay gaarsiin doonaan oo awreed way ka shaqeynayeen ay nagala shaqeyn doonaan sidii qadiyadeena si adduunyada uga hirgelin lahayd at the same time ay wixii caawimaya baarlamaanku u baahan yahay ee dawladdu ay u baahan tahay ee qaranku u baahan yahay iskiin barbartaag lahaayeen inta iyaduna way nala qaateen Parliament this morning particularly Foreign Affairs Committee and we received a very kind message from the Speaker of the Parliament from the whole Parliament for us to convey to the Speaker of the UK Parliament the Speaker of the House of Commons John Bercow and also to the Prime Minister and Matthew, myself and Liz have undertaken to take those back to the UK very clear message but we also had some really positive discussions I think about the potential for closer working between not only the all-party group on Somaliland but also through the International Parliamentary Union and links between our committees and between our parliaments not just at the UK level but also in Wales, Scotland, elsewhere there are many things that we could share and we can learn and I think there is a strong commitment I think on behalf of all of us that we want to see Somaliland's parliamentary institutions strengthened and going forward after the elections next year go from strength to strength and we had discussion as well about many international issues, regional issues we've taken that all back and we will be sharing those in the UK Parliament.